السلام عليكم. هدي ويك هوري 4 كيلو ay ka dhacday oo weegan aad aragtid in 4 kiilo 1 kiilo kamid ay soo laabatay. Su'aalo badan oo waxa jiro oo la isweydiyo keeni kareysana qalbiga inuu ku dego. Inta badan dadka aan la shaqeeyo marka ay 2 week ila joogan waa taqaan qofka markuu barnaamijka ku cusub yahay 2 week markuu kula joogo miisaan xoogaa yar oo macquul ah ka dhacayo. Waxa macquul ah marka inuu farxo message ku soo qoro ku dhaho coach aniga intaas maanta iga dhacday. aniga congratulations uma diro dadkaas waxaan dhahaa wax dhiba ma lahan inta badanna waxba ha ku qiimeenin inta miisaankan aad ku istaagaysid nambarada uu ku tusinayo li'annahu fiiri miisaankan waxa kor u qaadi kara wax walbo marka laga reebo faadkaaga maxaa ka wada biyaha kor u qaadi karo xalay hadda cunto cusub leh aad ku cashaysay iyo maalinka kale kor iskaga kaca hormonaadkaagu imbalance noqdo kor u kici karo sidoo kale stress yar ku soo wareera kor u qaadi karaayo marka laga reebo faadka kor u qaado waxa rabo inaan ku dhaho marka inta badan marka aad inaad isqiimeyso week horta isku qiimeenin bilna isku qiimeenin 2 bilood ilaa 3 bilood isa si kadibna waxaad fiirisaa dhaxdaada fiiri walaal cadi marka qaar fiiri marka treadmill-ka ku socotid treadmill-ka marka qofkii faad soo mara dareemi karo waxaa jirto socodka aad soconaysa gacnahaaga meelo kamid ah jirkaaga ay tataawanayaan laakiin markuu faadka ka dhacayo meelahaas xoogaa yar way shuuqayaan mana dareemaysid anymore marka waxaa la rabaa calaamadaha jirkaaga ka dhacayo wax ku qiimeey miisaanka aad ku istaagayso waxa ku qiimeyn weligaa. Assalaamu calaykum.